السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha khayrka jecel ee nagu xiran soo dhawaada ku soo dhawaada amaanin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. Alxamdulillaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu caafimaadka inoo siiyey ayaan idiin rajaynayaa idinkana inaad caafimaad qabtaan. Alxamdulillaah, ilaahay noo siyaadi xoog iyo xeelad aan leenahay kumaanan keensanin. Ilaahayow adiga ayaa noo gartay, ilaah hadiyadad adigana siisay waaye. Alxamdulillaah, ilaahayow noo siyaadi mar walba noqo qof xasuusto nimcooyinku ilaahay siiyey. ilaahay markaas waa uu kuu siyaadinayaa. waayo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii lashadiid. nimcooyinku ilaahay ku siiyey haddaad maanta intaad fikirto wax yar meel fadhiisato, ilaahay caafimaad ayuu i siiyey, ilaahay awlaad ayuu i siiyey, ilaahay xoolo xataa ma tira koobi karto oo ma dhammaanayaan. marka dheh alxamdulillaah, ilaahu i siyaadi. intii walaalay xanuunsan ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad taam ha siiyo. intii awlaad raadis awlaad barakaysan allah ha siiyo. inta haysatan allah u barakeeyo. intii xoolo doona, intii shaqo doona, intii guurdoon ah, qof kasta muraadkiisa oon macsi lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala midigtaa u saaro. soo dhawaada walaalayaal, qisaskeennii ayaan u gudagalaynaa. qisadeena koowaad maanta waxaa ka sheekeynaya wiilkaani wuxuu yidhi waxa ay qabsatay dhibaato weyn oo qof bini aadan ah uusan awoodin inuu iga qaado. dhibaato aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u weyn oo bini aadamkoo dhan hadday isku tagaan xataa aysan awoodin in ay iga qaadaan ayaa ay qabsatay ayuu yidhi. waxaan bilaabay istikfaarta inaan aqriyo. waxaan akhrin jiray xilliga salaatuleylka, xilliga salaada subax ka hor ee salaatuleylka ayaan akhrin jiray ayuu yidhi. arrinka i qabsaday wuxuu ahaa arrin weyn oo ilaahay mooye aadana uusan iga qaadi karin culeyskaas. waxaan bilaabay ayuu yidhi inaan istikfaarsado. waxaan istikfaarsan jiray xilliga salaada subax ka horeysa ee salaatuleylka la tukado. waxaana ka baryi jiray ilaahay in culeyskan iyo kurbada intaan la eg iga qaado. wuxuu yidhi maalmo kooban, maalmo xitaa aan isbuuc dhammayn ayuu ilaahay murwadii iga qaaday. intii aan ka rajaynay iyo in ka fiicanna waan ka hel ayuu yidhi. xilligaas ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka istikfaarsado aad ayuu u ammaanay oo waa xilli aad iyo aad u wanaagsan. qisadeena labaad waxaa ka sheekeynay wiilkani wuxuu yidhi alxamdulillaah, maalinkii aan bilaabay inaan istikfaarta aqriyo noloshaydii waxaa ku dhacay isbedel weyn. wuxuu yidhi anigii xaaskeyga waxaa naga soo daaday awlaadii. sidoo kale wuxuu yidhi gurigeena waxaa ka jiray buuq, isfaham waa, cariiri, baraka la-aan. marmarka qaar anigii xaaskeyga markii aan degannahay oo uu xanaaqa naga yaraado waxaan isweydiin jirnay inteedna laga haystaa. waxaan dhihi jirnay miyaana la sixray, miyaana la ilaystay, maxaana helay, maxaa nagu dhacay. yacni xaalad aan caadi ahayn ayaan ku jirnay. laakiin markii aan istikfaarta bilownay alxamdulillaah, ilaahay arrimaheena waa noo fududeeyey. awlaad ayuu ilaahayna siiyey alxamdulillaah. sidoo kale ilaahay xoolo ayuu siiyey ayuu yidhi. waqtigii ilaahay waa noo barakeeyey. gurigeygiina wuxuu noqday guri farxadeed. maasha allah, aniga xaaskeyga isku faraxsan. ilaahay awlaad ayuu i siiyey, xoolihii ayuu ii barakeeyey, waqtiga ayuu ii barakeeyey. cariirigii nololeed ee i hayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu iga qaaday ayuu yidhi. alxamdulillaah, aniga iyo xaaskeygiiba waxaan noqonay dad isku fiican. qisadeena xigta ee maanta waxaa ka sheekeynaysa gabar. waxay tiri gabadhan waxaan ahaa qof la dulmiyey. waxaa i dulmiyey ninkaygii ayaa u gardarooday oo i dulmiyey. xaaladeena iyo nolosheena waxay gaartay meel xun. aniga waxaan istaagay ayay tiri go-aan ah keliya ninkan oo ina furo, maadaama uu saa'id ama si aad ah iigu tacadiyey oo ii dulmiyey ayay tiri. qof walba wuxuu ilahaa maxaad furin ugu degdegaysaa, maxaad furin ugu ordaysaa. laakiin dadka waxay ahaayeen mushkilada iyo dhibaatadan i haysata oo uu ninkan ii geystay kuwa iska indhatiraya oo keliya aniga iga arka ayay ahaayeen. waan iska oon jiray ayay tiri. waxaan la oon jiray ninkan dulmigu igu sameeyey keliya maaha, laakiin dadkii oo idil oo asiga dhinacaysa taagan. waxaan bilaabay ayay tiri inaan istikfaarsado, in ilaahay baryo in arrintan iyo mushkiladan iyo dhibaatadan iga xalliyo. maadaama furiinki markii aan doorbiday oo aan go'aansaday dadkii oo idil aniga eedeynayaan, waxaan go'aansaday inaan ilaahay baryo oo istikfaarsado
oon ducaysto in ilaahay mushkiladan iyo dhibaatadan dhinac iiga xaliyo. Waxay tiri wax ka yar 2 isbuuc ninkeygii ayaa isbedelay, waa uu i raaligeliyey. Dhammaan dadkiin wuxuu u sheegay in uu asiga iga khaldanaa oo dadkii oo idin waxay noqdeen dad dhinacayga soo mara oo ani ila jira oo ileh gabadha maskiinta waa la dulmiyey. Halka marka hore ninkan dadkii oo idil ay lahaayeen naagtan waa naag xun, guri dhaqasho ma rabto, maxay furiin uga ordaysaa, waayo kamay warqabin dhibaatadu ninkan uu hayo. Laakiin wax ka yar isbuuc markii aan istighfaarsaday oon ilaahay baryay, ilaahay mushkiladii waa iga xaliyey. Ninkii waa ii soo noqday, waa uu i raaligeliyey. Dadkina wuxuu u sheegay khaladkii uu sameeyey iyo inuu asiga khaldan yahay. Alxamdulillaah waxaa caddaatay ayay tiri inaan aniga qof beri ahay oon aniga khaldanayn. Noloshaydiina ilaahay waa ii wanaajiyey. Aniga iyo ninkii oo xaaladeeni marka hore ay taagneed furiin iyo kala tagna ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimihii waa noo xaliyey. Maxabo iyo wanaag ayuuna dhexdeeni dhigay. Qisadeena kale maanta waxaa ka sheekeynay wiilkan wuxuu yiri waxaan ahaa qof shaqaysta, shaqo weyn ayaan heeyay ayuu yiri oo dadka aniga dhalinyarada ah ama dadka aniga ila midka ah ay ku hamin jireen oo qof walba dhihi jiray hebel meeshas ayuu ka shaqeeyaa, uu iigsan jiro qof walba oo anigoo kale inuu noqdo ayuu rabin jiray. Laakiin sidii aan shaqadeedii ugu wanaagsanaa ayaa waxaa dhacday in aan noqdo qof shaqadii aan tagaynin, shaqadii iska maqan, hadduu taga xataa shaqadii aan si fiican u qabanaynin. Maalmo waa lii dulqaatay ayuu yiri, laakiin markii dambe maamulaha meesha ayaa ii wacay wuxuuna yiri maalmahan waxaan ka arkaa isbedel weyn, shaqadii aan ku igmanayna sideedii ugama soo bixaysid. 2 arrin adiga ayay ku jirtaa, waxaan kuu qabanay muddo isbuuc ah. Isbuucaas haddii aad isbedel cad la imaan weyso oo aad si fiican u shaqaysan weyso, shaqadan waa lagaa burinayaa. Intaasoo dhalinyaraa joogto oo shaqo la'aan oo shaqadan haddii loo dhiiba si wanaagsan u qabsan lahayd. Wuxuu yiri aniga waan is ogahay ciladan ay haysato, laakiin ma aha wax aan aniga wax ka bedeli karo. Wuxuu yiri mar walba oo aan shaqada aad isto waxa uu soo taga caajis. Waxaan ahaa awal qof firfircoon oo shaqadiisa jecel oo aad loo jecel yahay. Laakiin hadda waxaan noqday qof hadduu rabo inuu shaqadii aado iska dhaaf maanta iska joog ama hadhow iska bax. Waxaan noqday qof careless ah. Aniga ayaan garanaynin ayuu yiri wixii igu dhacay iyo meesha laga haysto. Laakiin cabsi fara badan ayaan dareemay markii lii sheegay in shaqada laga burinayo. Waxaana ay haysta culays aan aniga awoodin inaan xakameeyo ama aan iska bedelo. Guriga ayaan imid ayuu yiri waan fikiray shaqadan maanta haddii lagaa buriyo shaqo kale miyaad helaysaa maya. Soo boos weyn maaha oo qof walba wiil walbo iyo gabar walbo dhalinyaro amaad ay ku hamiso. Ardadii aad jaamacad isla dhamayseen miyaa shaqeeyaan maya. Waan fikiray ayuu yiri waxaana dareemay in dhibaatada aan ila soconin ee culays saarin uu yahay. Waxaan go'aansaday in aan nafteyda qasbo oo nafteyda dhiirigeliyo ilaahayna aan isku xiro. Waxaan bilaabay ayuu yiri inaan akhriyo istighfaarta, astaghfirullah wa atuubu ilayhi, astaghfirullah wa atuubu ilayhi. Xitaa wadada markii aan sii maray inaan akhriyo, subaxdii markaan soo kaco inaan akhriyo. Wuxuu yiri maasha Allah waxaan dareemay fudeed. Sidoo kale waan ku ducaysan jiray markaan salaadaha ka baxo in ilaahay shaqadeyda firfircooni ii geliyo, in ilaahay culayskan isaarin oonan garanayn meeluu ka imaaday iga qaado. Wuxuu yiri alxamdulillaah maalinka istighfaarta aan bilaabayba maalinta ku xigtay shaqadeyda amin hore ayaan tagay. Waxaan noqday qof firfircoon ilaa haddana kama tagin istighfaartii. Wadada markii aan sii marayo markaan soo socdo markii aan sii socdo intaba waan akhriyaa ayuu yiri alxamdulillaah. Maalinkii uu maamulaha ila hadlay maalinkii ku xigtayba isbedel muuqdo sideedii hore iyo si ka fiican ayaan noqday alxamdulillaah. Markii aan ilaahay baryay oo istighfaarta akhriyay waxaan yeeshtay ayuu yiri awood. Shalay waxaan ahaa qof caajis inuu iska jiifo rabo anigoo og oo arko xilligay saacada in la gaaray aan shaqada aadi lahaa ayaan leeyahay iska jiif hadhow ayaad baxaysaa. Caajis ayaa saarnaa. Laakiin hadda maasha Allah waxaan noqday qof firfircoon, qof dhiiran alxamdulillaah. Salaada subax markii aan soo kaco tukado waan istighfaarsanayaa. Quraan ayaan akhrin waa istiyaarinay si jawi degan ayaan ku baxayaa ayuu yiri. Shaqadeediina waxaan noqday qof ka adag. Waxaan noqday dadka ugu horeeya shaqada soo galo. Alxamdulillaah ilaahay istighfaarteeda nolosheedii ayuu ku bedelay ayuu yiri wiilkan. Waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel qisaskayga maanta halka ay noogu ogyihiin.
haddaa halkaas soo gaartay muuqaalka like saar si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum.